bulshada Soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga Amerika shirkaas oo loogu magac daray Soomaali Siman. Maad Carabo Cali ayaa warkaasi ka soo diray Toronto, Canada. magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa lagu qabtay munaasabad aad u ballaaran isla markaana ujeedada ahayd mid loogu magac daray Soomaali Siman. munaasabadan ayaa lagu qabtay hotelka caanka ee Toronto Plaza ee ku yaala galbeedka magaalada Toronto ee dalka Canada. munaasabadan waxaa ka soo qayb galay xubno dhowr ah oo magac ku leh bulshada Soomaalida haddii ay ahaan lahayd professorada wax ka dhiga jaamacadaha dalka Canada iyo dalka Mareykanka. sidoo kale munaasabadan xubnihii lagu casuumay waxaa ka mid ahaa farshaxaniisaha caanka Amin Amir oo ka yimid gobolka Alberta, Ahmed Dirir Xuseen oo ah mudane laga soo doortay dalka Canada, iyo professor Kuso oo asagana wax ka dhiga jaamacadaha dalka Mareykanka. sidoo kale Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen oo ah imaamka masjidka weyn ee Khalid bin Waliid ee ku yaala galbeedka magaalada Toronto. intaba waxay hoosta ka xariiqeen in aan la kala sarreyn cidda sarraysan ay tahay Allah subxaanahu wa tacaala. dad aad u fara badan ayaa ka hadlay munaasabadan waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaa tiraa kuma jiro Soomaali Siman waxay u taagan tahay inaan horta caawino ama aan wax barno ama mataqaanaa awareness aan create gareyno kan dulman iyo kala duwan labadaba. qabiilkana waa ka sarreeya qul haatu burhaanakum baan leenahay yaa ku yiri xagee ka haysataa ma diinba oo haysataa ma wax kale oo haysataa yani maaragtay inna akramakum indallah ilaahay ma marka noo sheegay yaa see loo kala badanya see loo kala fadil badanya see ilaahay loogu dhow yahay inna akramakum indallahi atqaakum ilaahay miisaanka wax ku miisaamo waa kaas. diinta uma dhigayso siyaada Sheekh Abuukar oo sheegay qof in la yiraahdo haafaa tahay qofna la yiraahdo waa qof dhanaa tahay. marka waxaan diinteena ogoleen in baarlamaanka 100% Soomaali waa muslim haddana see ku ogolaadeen in qof la yiraahdo nusaa tahay wax cajiib waa. xuquuqda bini'aadanka marka loo eego idinkagama sheekeynayo waad ogtihiin diiniyan iyo maxay ahayd toole adduunka aynu marayna maanta waa in xuquuqda anagu aynu taaganay kulligan waanu caroonaa anagoo Canada nimid. Canada waxaanu ka nahay dadka laga badan yahay minority baanu ka nahay inta waxaanu u dagaalamaynaa inaanu ka mid noqono dadka wadanka oo la mid noqono la xuquuq noqono. marka wadankeena maxaad u malaynaysaa dadka jooga iyo barnaamij in la iskugu yimaado oo la fiirin maaragtay waxyaalahan aan nilaano waa ku kala duwannahay inkastoo aanan kala duwanayn anaga dad Soomaali baan wada nahay oo isku diin leh isku luqad leh isku dhaqan leh. marka maxay tahay ujeedada haddii la yiraahdo Soomaali nuskeeda ama Soomaali ma tihiin haddii la yiraahdo siyaasadii dhaqaalihii mujtamacii